السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته خيري ولكن شي نحرق maanta barnaamijkeena diiradda waxaan ku saaranaa ama aynu ku eegnaa fakarka iyo dhibaatooyinkiisa iyo weliba stresska oo isna aan isku dayno insha allah inaan in yar ka eegno bismillaahi raxmaani raxiim. horta fakarku waa waxyaabaha aadka u daran ama problemka aadka nolosha aadamaha si gaara u taabta ama si gaara u khuseeya eelana degan noloshooda. aynu lahnay qofku wali ku dhawaado ama maskaxdiisu muur gasho ama inuu qofkaasu maskaxdiisu hurudo. waayo Soomaalidu waxay tiri maamaha Soomaalidu waxay tiraa waxa diisaab way ku daayaan. kolley maamaha anigu waan sidii askee faanaye isba faanaye horta runtii laakiin aska kaftamaya laakiin أنا سيدي واتسمي سي أو كل واحد اللي برات عبوي كبرتان طبعا مركزون الدنيا واحد استوى نفترض يعني ما أنت برتو أما كبر شو قد برا وبرناسا هبين كده تقول راسي حتى ولا هبين تقول راسي حتى مش سد هبين شو بحياة سد هبين بقى تقول تورسي حتى شو بحين يقول ركض habeen afraadka goortii aad seexatay 3 habeen hore ayaad seexanaysaa isku soo beegaysaa waqti kurtida ku soo lacaysa isla subaxiina xiligi bay ka go'aysaa. marka taas weeye tan ku hadlana aan leenahay yani waxa barataa way ku bartaan. marka dabcan horta fakarku dhibaatooyinkiisa horta faa'iidooyinkiisa fara badan yihiin oo de kulli dabcan fakarku waa daruuri mar walba qof walba bini aadam oo dunida jooga shaqadiga kabiir دي ولا فكرة لكن قفل بتي سيبو فكرة أو تقف تي أمبر المكويمي أما نلوش شيء مستقبل كيس تمتي بالكيس نلوش كفكرية شو ده هيرو قال لها أما غير كيوت يكشن لها كاسوا كضروري قام بديك عادي جاه لكن كبروبلم الدباتوين كسمية والدنا la walaalka waxa weeye ka joogtada isna horta si yar baad ku daweyn kartaa oo dhibaatooyinkiisa horta dawa iska waalida shaki qofka waxa khayraad u yeesho muud maskaxdiisa qofka oo gasho maskaxdiisa qofka seexato oo aan horumar samayn oo de marka la yiraahdo hebelow qofkii yirabaxo oo kala oo tun furas baxsan yahay oo mar dambe soo noqonay oo maxaad lahaydeen oranayo ama ya yiri oranaya. marka horta dhibaatooyinkiisa waxyaabahaas oo dhan baa kamid ah wali baan ku dambeeyaa marka dambe laakiin faa'iidadiisina de faa'iido horta ma jirto laakiin waxaan oran lahaa qaacida isticmaala oo aan aaminsanahay fikrada iyo problem waxyaabaha horta keena badi waxa weeye qofku in dhibaato ku timaado oo dhibaatadii uu qofkii isku mashquuliyo 24 hours ka fakaro dabeetan dhibaatadii hadba marka dambe step ku sii durto oo ay ku fido oo ay gaadho qofka inuu 24 hours ka fakaro arta xulus isku weynaysiyo dad wax isku weynaysiyo ku weynaada sidaade waxaad barataa way ku bartaan. marka horta فكركان waxa ruuxa aan qaacadeen isticmaalo fakarkaagu iyo ka badan 3 minutes 3 mirir oo ku badnaan 5 mirir ba waqtigaad ka fakaraysaa maxalligaad ka fakaraysaa hadad markaa xal weydo shuruudaad isticmaalaysaa ha haadan inaad goob cidla joogto oo bila booq ama cid aan ku rabshayna ama cid ku dhibaataynin marka hadii aad markaa xalkii weydo ama xalkii فاحك قاب وقتي حدا أموال ندحيسي أما الله ندحيشي لكن وقت كله بهو دحيو اسكو طي كل قف إسلام ودي تاي كل عبادة كما بني ويشيشو لبسو نأتكو إلهي توكل سارو أرنتا صديت هيدا وأرين وينكم مشغول سانو
anuu badi arrimaha waaweyn ama kolley arrimaha waaweyn u baday ka fikiraa, laakiin arrimaha yaryar baa iskuma mashquuliyo, waayo xalku isagaa iman doona. weysayso 2 ragcadood tuko isku day, adigoo dee shuruudihiina oofinaya, goob cidlaa tegaya bilaa buuqa. den markaa waa ta saddexaad. markaa xalku isagaa ku hor iman doona, tii kale faraha ka qaado. markaa dhibaatooyinkiisa u badan hurdo la-aan, cunto la-aan, qofkoo dhiiga ka shaqo, waxyaabahaasoo badan uu leeyahay. waayo dee noloshu fikirku dee maskaxdaadii xoog buu shaqaynaysaa, wax walbood ilaaweysaa. heer marka dambe qofku wuxuu dee keensada ama ku dhacda in xasuustaba guurto, marka dambe dee weli halkaa la galo qofkii. marka dhibaata iyaduna jirta xagga hurdada baday oo dadku aad iyo aad uga cawdaan. taa iyadana kolley qaacida aan isticmaalo ayaan iyadana kugu borin lahaa ama kugula talin lahaa, oo ah inaad habeenkii markaad seexanayso, kolle qof walba bani aadan ba dee ilaahay buu isu dhiibaa, qof walo islaama, weysayso 2 sunna aad tuko, dabcan adkaarta hurdada markaad iska akhrisato. haddii uu ku hor yimaado fakarkaasho, quraan dhegeyso, warfunta soo qaato, moolka iska gasho ama moolkaba iska daaro. haddii aad awoodaydo cid kula hurdo, tusbax iska soo qaado, iska tasbiixso sidii nabiga weli alayhi salaatu wasalaam nabiga. tusbax oo ka khayr badan ba farahaaga. kolley markaa dee waxba arki maysid. haddii aad aragtana kolley shaydaanku wuxuu ku odhanaya waxaan maxaad ku falaysaa, oo dee isagaa ku mashquulinaya, waxaan isagaa wata. inta hore wuxuu doonaya inuu waxaan kaa jeediyo, dee ducooyin waxaan sunnahan nabiga alayhi salaatu wasalaam iyo khayrkan aad ku seexanaysa ama khayrkan aad doonaysa inaad isku loosiiso. dabcan marka dambe waad ka adkaan karaysaa. marka xigta kolley waad iskala soo qabsanaysaa. kolley siya step laga yaabaa in ilaahay kaa caafiyo, waayo wadada guusha, wadada khayrka guusha kama dhacdo khayrka markiisa horaba. kolley dee mawduuci labanaha waqtigaan ugu yarba oo aad barnaamijka man hawdheereeyey. mawduuca stresska isaga waqti gaarayno insha allah isku dayna inaan ka hadlo. inta ka horeysa nolol kulantii waqti wacan baan idiin soo rajeynayaa asxaabay. kolley deysaan hore ku sheegay codsidii malaha badi malaha degdega ku fara badan barnaamijyada ku daawataan baa laga yaabaa. like-tii iyo dee leedi kama hayo barnaamijka markaa daawataan like-ta ka ilaawina. inta ka horeysa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.